madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho sharafeed wuxuu ugu tagay Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi masaajidka imaamka uu ka yahay ee ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Sheekh Cabdirashiid ayaa halkaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa, waxayna la tukadeen salaada maqrib iyagoo iska xog waraystay xaaladda dalku uu marayo iyo halka ay xukuumadda Soomaaliya hiigsanayso sanadaha soo socda. Sheekh Cabdirashiid ayaa madasha ka soo jeediyay fariin qiimo badan iyo dardaaran, isagoona bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay qabsadaan xarigga Alle. waxaa halkan aan joogaa galabta fi Dooxa masjidkaygii masjid Anas ibn Malik ku magac dheera masjid Suuq al-Khudra, iyadoo uu nagu sharfay madaxweynaha Soomaaliya Mr. Cabdullaahi Farmaajo barakallahu fiih, oo sharaf gaar ah ay tahay xaqiiqatan inuu masjidkaygii soo doortay iyadoo masaajidada waddankani aad u fara badan yihiin. marka arrintaas aad iyo aad baan ugu faraxnay, waana ku soo dhaweynaynaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah tabaaraka wa tacaala in Ilaahay subhanahu wa tacaala yani khayr waafajiyo waddanka, Ilaahay subhanahu wa tacaala inuu il naxariis leh waddankeena Ilaahay uu ku daymoodo, dhibaatada iyo colaadda iyo rafaadka iyo abaarta Ilaahay inuu ka dulqaado. haddii masaajidkaas aanu joogno weligan ku ducaynayna ducadiina sidii un baan u wadaynaa insha Allah tacaala. aad iyo aadna waan u faraxsannahay galabta ma aragtay booqashadan oo madaxweynuhu si khaas ah noogu soo booqday masaajidka inuu ila tukado. xaqiiqa ahaan haddaan idin warramo maanta dawladda Qatar oo dhan baa isku dhacday, wasiir khaarijiye iyo wasiir awqaafkii annagana xukumay iyo wixii oo dhan oo waxaa la yidhi madaxweynihii baa doonaya inuu adiga kula tukado. masaajidda waa weyn baa jira halkan, ma garatay, laakiin waxaa la masaajidkaagu doortay masaajidkaagu doortay baa la yidhi. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tashriifkaas iyo soo dhaweyntaas. ilaahayna waxaan ka baryaynaa insha Allah tacaala uga baryaynaa madaxweynaha cumri dheer iyo caafimaad, iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala maxabadan iyo muwaafaqadan ilaahay siiyey ummadda u siiyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu daro tawfiiq ilaahay subxaanahu wa tacaala. saasaan ka rajaynaynaa. meelna haddii kulli masaajid baan joognaa oo iyo cumuuman mu'minkii wasiye iyo dardaaranna waa lagama marmaan. waxa aan u dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed caamatan ummatan muslimiin jamiican, liibaan iyo guul waxa uu lagu gaarayaa ilaahay oo xiriir la yeesho. haddii rabbigan xiriirka aanu goyno, haddii adduunkan ilaahay baa xukuma, adduunka iyo aakhirada labadaba ilaahay baa iskale. ilaahayna hal dariiq kaliya uu liibaanta noogu sheegay, qad aflaha almu'minuun. halkaa waxaa ku baxay hayru lmu'miniin. marka inaan ilaahay ku xiranno oo ilaahay rumayno subxaanahu jalla jalaaluhu, oo daacada ilaahay aan ku dadaalno. waddankana ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddiisa maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinku yani deeqay oo inaan insha Allah idinkuna aad ku dadaashaan, waaba dadaalaysaan intii tabartiina aad dadaashaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala maxabadiisa iyo kalgacaylkiisa iyo daacadiisa iyo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda lagu xukumo oo dariiqaas aanu mar waan rajaynaynaa insha Allah tacaala. wasiyada iyo dardaarankaaba aan Soomaali u dardaarmayaa meel kasta ay joogaan in ilaahay jalla jalaaluhu aan ku xiranno. booqashada madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ku sharfeen Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi ayaa muujinaysa doorka weyn ee culimada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin bulshada. Sheekh Cabdirashiid ayaa waxa uu caan ku yahay codka uu hibada eebba u siiyey, wuxuuna ka mid yahay culimada loogu jecel yahay codkooda guud ahaanba dalalka Islaamka. Axmed Darwiish, warbaahinta qaranka, magaalada Dooxa.